madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo horey ugu tartamay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa mar kale isku diyaarinaya inuu noqdo musharax madaxweyne qaran hase yeeshee hamigiisa siyaasadeed waxa uu si toos ah ugu xiran yahay ficilo iyo go'aano muddo dheer la arkayo kuwaas oo si muuqata uga hor imaanaya dhismaha dawladnimada iyo mideynta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tan iyo markii uu qabtay xilka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu qaatay mowqif siyaasadeed oo si joogto ah u wiiqay dadaaladii lagu dhisay hay'adaha qaranka gaar ahaan kuwa amniga waxa uu si cad uga hor yimid dhismaha ciidan qaran oo midaysan isagoo oo Puntland ka dhigay meel ka baxsan nidaamka guud ee amniga dalka taas oo dhaawacday istiraatiijiyadda qaranka ee la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amniga guud ee dalka sidoo kale Dani waxa uu diiday una istaagay carqaladaynta tallaabooyin waaweyn oo taariikhi ah oo Soomaaliya u horseedayay soo kabasho qaran kuwaas oo ay ka mid ahaayeen qaadista cunaqabataynta hubka cafinta deyntii lagu lahaa dalka iyo dhamaystirka dastuur qaran oo mideeya nidaamka federaalka go'aanadan ayaa si toos ah u saameeyay awoodda dawladda dhexe kana hor yimid danaha guud ee qaranka arrimaha siyaasadda dibadda Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu si cad ula saftay Itoobiya xilli ay taagneed arrin la xiriirtay damaca Itoobiya ku doonaysa qayb ka mid ah badda Soomaaliya arrin si weyn loogu arkay ku tumasho madax banaanida dhuleed iyo qarannimada dalka mowqifkaas ayaa ka mid noqday tallaabooyinka ugu waaweyn ee dhaawacay midnimada mowqifka Soomaaliya ee caalamka intaa waxaa dheer Dani waxa uu si furan u taageeray mowqifka Israa'iil ee ku wajahan kala qaybinta Soomaaliya gaar ahaan dadaalada lagu doonayo in Somaliland si gaar ah loo aqoonsado tani waxay si toos ah uga hor imaanaysaa dastuurka iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isla markaana waxay xoojinaysaa faragelinta shisheeye ee arrimaha gudaha dalka wasiirka warfaafinta Puntland oo arrinkaasi ku diiday hadal uu warbaahinta siiyay ayaa lagu qasbay inuu ka laabto dhanka amniga Puntland waxa lagu qabtay hub si rasmi ah loogu waday ciidanka qaranka Soomaaliyeed taas oo si cad u muujisay tallaabooyin lid ku ah dadaalada dawladda dhexe ee lagu xoojinayo amniga dalka inkastoo markii dambe Turkigu ka soo fujiyay hubkaas dhacdadani waxay astaan u noqotay siyaasadda kala qaybinta hay'adaha amniga ee uu hormuudka ka yahay Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale waxa uu si cad u diiday nidaamka visa ee qaranka ee laga hirgelinayo deegaanada Puntland taas oo carqalad ku noqotay mideynta adeegyada dawliga ah iyo aqoonsiga qaranka dhanka warbaahinta iyo saameynta bulshada Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu maalgeliyay shakhsiyaadka howlgala baraha bulshada iyo warbaahinta kuwaas oo si joogto ah u aflagaadeeyay madaxda qaranka heer walba isla markaana weerar afka ku qaada wakiilada Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay tani waxa ay noqotay istiraatiijiyad siyaasadeed oo si nidaamsan loogu wiiqayo hay'adaha qaranka iyo sumcadda dawladnimada Soomaaliya iyadoo dhammaan ficiladan ay yihiin kuwa la arkay la diiwaan geliyay lana xiriira go'aanada